halkan waa xirada tababarka ciidamada ee General Gorod waxaana gacanta ku haysay dawladda Imaaraadka Carabta tan iyo markii uu xumaaday xiriirka labada dawladood waxaa maanta si rasmi ah xaruntan ciidankii lagu tababarayay iyo sidoo kale gawaari ka kooban 25 cadibile la wareegay dawladda Soomaaliya abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ahna kusimaha taliyaha ciidamada xoogga dalka Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in hadda iyo wixii ka dambeeya ay gacanta ku hayaan xirada tababarka General Gorod dawladda Soomaaliya waxaana uu sheegay inaanay jirin wararka sheegaya in la biliqaystay agabka xirada yaali qaarkood halkan saraakiishii Imaaraadka ee dugsigan maamuleysay waxa ay si buuxda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhismo ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay waxay kala aan la wareegnay qayb gaadiid ah oo ay noogu deeqeen oo ay nagu wareejiyeen gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid shaqada Soomaaliya cabdibilaha u taqaano iyo ambalaasyo dhammaantood saraakiishii Imaaraadka ah baa nagu wareejisay waxayna ku wareejiyeen taliska xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga General Gordon oo hadda loo bixiyay guutada daljir oo leh taliye guuto abaanduulo guuto taliye ururo abaanduulo ururo ilaa taliye hore nidaamka ciidamada loo dhisay ay u dhameystiran yihiin hadda ciidankaas halkan degan saraakiishan garbahayga taagan oo saraakiisha xaradan iyo ciidankan iyo gaadiidkan iyo qalabkan maamuleysay intii ay ayagu saraakiisha Imaaraadka ay ka baxaan sidii hore ay ahayd iyo si ka sii qurux badan yaa gacanta loogu hayay qalabka iyo dhismaha waana nadiif oo dacaayad fara badan oo hadda soo baxay oo la leeyahay warbaahintaas sii deesayo dugsigii General Gordon waa la bilqayso saraakiishii nin walba wuxuu iska qaatay baabuuro askartiimada baabuur baqato waa la kartay waxaas waa dacaayad iyo afmiishaarnimo iyo waxaan waxba ka jirin taliyaha oo sidoo kale ku dhaxlugeeyay xirada ayaa tagay qaybaha kala duwan oo ay ka kooban tahay waxaana askarta uu kula dardaarmay inay dalkooda ilaashadaan isla markaasna ay heli doonaan xuquuqdooda asaasiga ah Munasar Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho